Bismillahi Raxmaani Raxiim. Waxaanu maanta bilaabi doonaa cashar ku saabsan sida loo samaysto akoon YouTube iyo waxyaabaha lagaga baahan yahay sida markaad sameysanayso akoon YouTube kanaal maxaa lagaga baahan yahay shuruudaha lagaga baahan yahay waxaa ka mid ah inaad horta Gmail leedahay akoon Gmail waa inaad leedahay akoon Gmail haddaad haysato YouTube-na waad leedahay sidaa darteed step by step ayaan u dhigi doonaa loola socdo. Marka ugu horeysa halkan markaad soo kiciso waxaad dhahaysaa Google-ka waxaad ku qoraysaa create Google account dabeetana create Google account markaad ku qorto create Google account intaas ku qor search garaynay dabeetana ka ugu horeeya ku dhufanaysaa dabeetana daaqada baa kusoo boodaysa magacaaga iyo magacaaga ugu dambeeya magacaaga iyo magaca awowga ayaad qoraysaa halkan hadaba ugu muhiimsan dabeetana step by step halkan aad soo galaysaa halkaasaad gelinaysaa marka Gmail-ka aad doonayso waa halka ugu muhiimsan weeye marka Gmail-ka la sameysanayo halkani dabadeetana password adag baad intaa kadib gashanaysaa adigu markaa password-ka baad gashanayaa mar labaadna waad ku celinay confirm horeynu uga soconaynaa stepka ku xigay sii gelinaa halkaa waxaad gelinaysaa phone numberkaagii si code yar 6 code baa lagugu soo dirayaa okay halkaa dabeetana waxaad gelinaysaa Gmail-kaaga aad doonayso hadhow haddii Gmail for example oo kale halkan waxa weeye ad recovery email baa la yiraahdaa waa haddii for example Gmail-kan oo kale hadduu aad ilowdo passwordkiisii sida aad u soo ceshan karto marka laba option baa lagu siiyay inaad escape iska tiraahdo iyo inaad ka gudubto next tiraahdo escape inaad tiraahdaa waxa weeye waa optional weeye waa wax optional weeye escape haddaad maqasho waa optional waa waxaad iska dayn karto iyo waxaad buuxin karto marka waxa muhiimsan inta badan inaad buuxiso halkaa Gmail baan gashanayaa anigu next intaa kadib waxaanu aqbalaynaa agreement-gan uu na siiyey yes agree baad leedahay yes I agree waa listen waa privacy and rules shirkadda Google ay ina weydiisay sidaa darteed waa aqbalaynaa intaa kadib Google-keeni wuu inoo samaystay halkan waxaad ku dhufanaysaa Google account Google to Google account tag Google-kaagii marka Google-keeni baan tegaynaa akoonkeenu samaynay nimika dhex tegaynaa akoonkeenu samaynay wuxuu ahaa kaa ugu dambeeya waan sign garaynaynaa signing in passwordkeenu gashanaynaa intan buu ahaa hadhow adiguna passwordkaaga gashanaysaa password adagna waad u samaysanaysaa weliba password adag baa la doonaya inaad u samaysato intaa kadib waa kan akoonkeenii wuxuuna keenay oo aynu toognaa imika dashboard account baynu joognaa akoonkeenii sidaa darteed waynu samaysanay intaas waa marka aad Gmail samaysanayso stepkii koowaad markaa waynu dhamaynay oo ahaa in Gmail la samaysto si aad YouTube kanaal si aad u samaysato waa inaad Gmail account waa inaad leedahay baynu nidhi stepkii labaad baynu gudbaynaa oo ah sida haddaba YouTube loo samaysto okay ila socda stepka labaad sidaad haddaba YouTube u samaysato already maadaama akoon aynu leenahay halkaa waxaad ku qoraysaa website-ka waxaad gelaysaa YouTube account-ka baad gelaysaa website-ka waxaad gelaysaa YouTube-ka waxaad leedahay youtube.com baad gelaysaa youtube.com markaan saa u gallo aynu website-kii YouTube-ka gallo waxay noo soo kacaysaa YouTube-kii bay noo soo kacaysaa okay halkaas isha yar baad soo furaysaa akoonkeena dabadeetana waxaad ku dhufanaysaa halkaasaad ku dhufanaysaa oo ah create canal create canal baad ku dhufanaysaa
okay daaqadan bay inoo soo guudaysaa daaqadan waxay leedahay magacaad u samaysanayso akoonkaaga for example the account YouTube ina samaysanayna Soomaa okay magac baan u bixinanaa sidaa darteed magacaad u bixi kan intan dambe waa inta way iska deynaysaa oo waa inta YouTube ku soo baxaya hadhow oo waa link YouTube kanaalkeena linkigiisii weeye sidaa darteed way iska deynaysaa inta hore aad bedelaysaa laakiin magacaad bedeli okay magac markaa qiimo leh baad u samaysanaysaa magacaaga ama magacaaga u qoranaysaa ama haddaad tahay qof shirkad haysta shirkadiisa aad ku qoranaysaa haddaad tahay qof xirfad ku soo gudbiye ama aqoon ku soo gudbiye waxaad doonayso ayaad markaa ku qoranaysaa magaca for example haddaan hadda ku qorto anigu tusaalahaan kale waxaan qoraybaa Xasan Academy ama Xasan Designer for example waxaan soo gudbiyaa wax ku saabsan graphic design iyo waxyaabaha sidaa darteed maadaama aan graphic designer soo gudbiyo magacaas oo kale aan la baxay tusaale dabeetana waxaad leedahay create channel halkaan select waxaad soo gashanaysaa select picture profile-ka hadhow xagga dambe ka soo gashanaa laakiin hadda marka hore soo samay okay daawade intaa kadib waxaa inoo samaysmay iminka maxay wax la yiraahdo YouTube kanaalkeeni ayaa inoo samaysmay YouTube kanaalkeeni baa inoo samaysmay maadaama aynu nidhi YouTube kanaalkeeni wuu inoo samaysmay maadaama YouTube kanaalkeeni aynu samaysanay account-keeni sidaa intaa kadib stepka saddexaad aan hadana sameynayna waxa weeye inaynu YouTube kanaalkeena u samayno profile picture baynu soo gashanaa halkaas si wixii uu hadhow noqdo wax xiiso leh oo dadka soo jiita waayo YouTube haddii YouTube-kaaga aadan u samaynin profile qurux badan aadan soo gashanin ama logo qurux badan haddaad tahay institution logo soo gashan kartaa profile-kan oo kale waxaad soo gashan kartaa logo ama sawirkaaga sawir kura oo software ay halkaas soo gashan kartaa sawirka aad soo gashanaysaana waa inuu yahay sawir qurux badan oo dadka soo jiidan kara okay at same time waxyaaba kale lagaga baahay waxa kamid ah banner-na inaad samaysato banner qurux badan oo halkaas aynu soo dhigno hadhow baynu xagga dambe ka soo dhigi doonaa intaa kadib waxaan ku horeynaa marka ugu horeysa bal inaynu banner-kii soo gashano inoo dambeeya profile picture-kaasi banner-kii baynu soo gashananaa si aad u soo gashato waxaad tegaysaa YouTube-kaaga waxaad dhex gelaysaa meesha la yiraahdo YouTube Studio oo ah halka laga maamulo account-kaaga halkaad ka maamulayso weeye account YouTube-kaaga meesha laga maamulo waa YouTube Studio okay okay saynu hadaba banner qurux badan saynu soo gasano waxaan tegaynaa qaybta la yiraahdo customization dabeetana halkan waxaa ku qoran sidaad arkaysaan banner image waa waxa kasoo dhex muuqanaya qaybta sare ee sawirka for example haddaan iminka tagno YouTube-kayga aan anigu leeyahay haddaan dhex tagno wuu kasoo muuqanaya okay sidaa darteed halkaasaan soo gelinaynaa markaa bannerka si hadaba usoo geshato mid cusub baad samaysanaysaa halkan oo kale aad tegaysaa canva.com website-ka yar la yiraahdo waa website aad u muhiim ah oo aan inta badan isticmaalo website-kaas wuxuu kaa caawinaya inaad hawl yar aad ku design garaysato any kind of your want wax kastoo aad doonayso design ku saabsan hadday yihiin logooyin hadday yihiin banner hadday yihiin billboard wax kastoo kaa caawinaya inaad design garaysato marka qaar template iyo qaar aad adigu manual oo gacantaada ku samaysanaysa labadaba waa uu leeyahay halka waxaad ku qoraysaa banner YouTube banner size-kiisana wuu ku siinayaa moogta isagoo size-kiisa sax ayuu ku siinayaa this one waa kuwan markaas ka doonto intaasoo options baa lagu siinayaa marba kii quruxda badan ee kusoo jiita ayaa aad hadhow adigu qaadanaysaa like for example iminka kan oo kale aan qaadanaynaa kana waxbaynu markaa ka bedelaynaa editing baynu ku samaynaa ilaa sidiisa ku qaadan maynee magaca iyo waxaasoo dhan baynu ka bedelaynaa wax inaga inoo qalma ayaynu qaadanaynaa okay waxaad tegaysaa customize this template
dabeetana si aan videogu inoogu dheeraanin waa soo koobinaa waa goobsiinaynaa ala la socdo halka dabeetana waxa soo gashanaysaa magacaaga qoraysaa marka uu magaca YouTube-ka ka kasre ku qoray halkaana waxa gashanaysaa website-kaaga gashanaysaa hadaa doonto icons noo soo raacin kartaa maadaama halkan kale background-ka laftiisa wad bedeli kartaa profile-kana waa iska soo bedeli kartaa profile-kaaga waa iska saaraynaa delete baynu leenahay delete image dabeetana halkaas sawirkeeni waa soo gashanaynaa waxaad haysaa upload sawir inoo qalma baad soo gashan kartaa iminka waxaan iska soo gashanayaa profile-kaygan sawirkaygan baan soo gashanayaa laakiin hadhowta adigu looga samaysanaysaa haddaad doonto loogadaada soo gashanaysaa sidoo kale waxaad ka bedbedeli kartaa maxay background-ka laftiisa waad ka bedeli kartaa oo background color-ka waad bedeli kartaa farta lafteeda waa qurxin kartaa waa sii hagaajin kartaa maadaama laakiin inagu waa soo koobaynaa maadaama ayna waqti badan haysan intaasaan ku joojinaynaa dabeetana waad save garaynay markaad save garaynayso halkaas ku dhufanaysaa share markaad ku dhufato bal hadda si fiican ugu fiirsada waxaad leedahay download waxaad leedahay wuxuu ku siiyay type file buu ku siiyay ma png ba doonaysaa mise wax kale inagu png dooni mayno waxaan doonaynaa gbg iga dhig baan leeyahay waa gbg maxaan doonaynaa gbg waxa weeye shaygan inuu background-kiisa isagoo leh ii keeno laakiin haddii imka png ka dhigno background-ka oo dhan baa laga saarayaa meesha inaguna saa dooni mayno de dabeetana waxaad leedahay download waa download garanaysaa winoo download intaa kadib waynu soo gashanay waxa la yidhahdo bannerkeeni waa soo gashanay halkaas aad dhahaysaa upload dabeetana waa soo dhex gelinaysaa waa soo dooranaysaa dabadeetana saas kugu soo gelaya intaa kadib haddana picture-keeda qodobka step-ka labaad aynu gelaynaa oo ah sida picture-ka loo soo geliyo profile picture upload baad leedahay isagana dabadeetana waa soo gashanaysaa for example kale anigu waa kaa waa soo gelinayaa size-kii si fiican baad ugu fadhiisanaysaa dabeetana waa soo gashanay isagana okay buu inoo yahay halkana waad sii faahfaahin doontaa laakiin dib baynu ka faahfaahin doonaa halkan macluumaadka ay xambaarsan yihiin iyo waxyaabaha then intaa marka aynu sameyno waxaan leenahay dabeetana publish halkaasaan ku dhufananaa marka waayo waxaan doonaynaa waxaan in si toos cid kasta ay arki karto de publish baad leedahay then sidaad arkaysaanba iminka halkan maxaa soo fuulay waxaa soo fuulay bannerkeeni aynu iminka sameynay waa ka halkaas sare soo fuulay at same time profile pictureskeennina waa ka halkan yimi hadhowto bannerkeena oo kale waxaad moodaa iminka fartoo kale inay aada u dhex gashay halkaa naga gashay hadhowto waad hagaajinaysaa adigu waad hagaajisanaysaa farta dhinacan dhexaad keeni banner qurux badan baad hadhow adigu sii samaysanaysaa laakiin inagu iminka waan yara dedeji iminka adigu baan ku tusayey laakiin adigu hadhowto wax qurux badan ayaad samaysanaysaa banner aada u qurux badan oo size-ka ku fadhiya oo fiican ayaad samaynaysaa insha allahu samaynaysaa mid kalena waan idin xasuusinayaa oo hadhow markaad samaysanayso dee bannerka markaad samaysanayso size-kaasaa lagu siiyey size-kaasaad qaadanay size-kaasaad ku base garayna iska ilaali bannerka marka aad hindisayso waa inuu size-kaa yeeshaa size-kaa lagu siiyey ayaa aad ku apply garaynaysaa intaa kadibna hadhowto muuqaaladaadii saas usoo hadhowna muuqaaladaadii baa soo gashanaysaa create haddaynu imika dhahno muuqaalba soo upload garanaysaa muuqaalkii marka inahaas ayaa aynu maanta kusoo gabagabeynaa marka saasaad YouTube kanaal aad ku samaysatay insha allahu marka adiguna YouTube ad kanaal aad ku samaysatay hadhowna fiidiyowyadii baad saa usoo gashanaysaa soo dooranaysaa fiidiyowgaagii meeshuu ku yaallay baad tegaysaa insha allahu intaasaynu kusoo gabagabeynaynaa waad mahadsantihiin